halkan waa isgooska Daynile waxa ka dhacay saameyn gaar ah guri ilaa ka afar guri ayaa waxa sidoo kale dab aad u weyn ay ka gacay ilaa hadda ma jirto wax khasaare oo rasmi ah oo maamulka inoo sheegay saameyntan ka dhalatay dabkan balse waxa la sheegay ilaa khasaare ay hantideed ka badan afar guri halkan inuu iyagu dabka uu qabsaday maamulka degmada ayaa soo gaaray iyo sidoo kale gaadiidka gurmadka degdega ah dadka ayaa inoo sheegay ilaa hadda inuusan wax saameyn gaar ah aysan jirin gurigaan u jeedin ama iskale hantidii wixii dhan iga baabaaday alxamdulillah caruurtii wixii dhan ilaahay iga badbaadiyey ummadda ilaahay ay ii soo gurmatay oo caruurtii iga bixisay alxamdulillah waa fiicannahay hadda laakiin wax oo hanti wixii waxba nooma harin shaarkan aan wata keliya ii haray aniga telefoon la soo diray ilmaha ka gubanaha la soo carray sidii ku soo carray ay ilaa meeq guri ahaa ilaa waxa way afar guri way sax afar guri way ay caruurtaada bal ka waran iyagu wax amay gaarin oo dabkan maya alxamdulillah ma hadii caruur wax iga ma gaarin laakiin wax hanti la yiraahdo dhan waa alxamdulillah waa ilaahay ma hadle bal ka waran markaas kadib gurmadka adeemaan miya gurmadka markii oo xoogo socotay ay noo yimaadeen oo guriyada isku baabay soo gurmada ugu horreeyay kamid ahay sax guriyana qayb kamid ah anaga gacanteena ku duminay wallahi halkan waxa ka dhacay maanta khasaare xoog leh ilaa iyo dhowr qoys ah guriga baabeen dad iska danyarna way deganaayeen marka khasaaruhu xoogaas ilaa u jeeday waa muuqata wax ka qarsoon ah xilli dambe dibku u dhamaaray oo soo wajii xoogaysan aadamtay wallahi khasaarahanteed midna ma jirto laakiin hantiya ku baabaaday waa guriyo sidii loo deganay macnaha sidii u basbeelay oo waxba laga bixin ilaa meeq guri ayuu saameyntu u geystay waa ilaa saddex boos oo dhisan محمود بولبري تي في راديو سيمبا مقدشو